kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halka Bulsh Sports TV markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada ayna waxa kamid ah wakiilka Jorginho ayaa xaqiijiyay inuu xiisaanayo Juventus wakiilka De La Rosa ayaa ka jawaabay hadalkii suuqa kala iibsiga ee Manchester United daafaca Gunners ayaa xilli ciyaareed amaah ku qaadan doona France Marc Asensio ayaa ku adkeysanaya inuu sii joogo Real Madrid intaasi waxa ay qodobadii warkaatana ku soo dhawaada asagoo faahfaahsan wakiilka Jorginho ayaa xaqiijiyay inuu xiisaanayo Juventus wakiilka Jorginho ayaa wali mid dheer markii ay timaado mustaqbalka u dhaqaaqista macaamilkiisa iyadoo John Santos uu haatan sheeganayo inuu xiiso ka helay kooxda Serie A ka dhisan ee Juventus ciyaaryahanka u dhashay Brazil una dheera dalka Talyaaniga ayaa dhawaan ka caawiyay Azzurri hanaanshada koobka Euro 2020 iyadoo bandhigiisa daba joog ay keentay qaar kamid ah inay soo jiidanayaan in 29 jirkan uu ku soo bixi karo tartanka Ballon d'Or wararka la soo dhaxmaray ee suuqa kala iibsiga ayaa sidoo kale sare loo qaadayaa iyadoo ninkii hore ee Napoli uu arka dib u eegista talaabooyinkiisii lagu dhawaajiyay iyadoo Santos oo sii wada inuu kaal indhayaasha xiisaha leh ee lagu bartilmaameedsanaya jihada qadka dhexe wakiilka De La Rosa ayaa ka jawaabay hadalkii suuqa kala iibsiga ee Manchester United warbixintaasi waxa eegaysa Qamar Maxamed Cumar Giovanni Di Lorenzo wuxuu lafdhabar u ahaa koobkii Euro 2020 ee Talyaaniga wuxuu noqday daafaca midig ee ugu dambeeyay ee la xiriirinayo Manchester United daafaca Napoli ayaa arkay saamigiisii kor u kacay isagoo matalaya midibada dalkiisa iyadoo wararka ay soo jeedinayaan inuu haatan iska diiwaan gelinayo Old Trafford wakiilka 27 jirkan ayaa si kastaba ha ahaatee isku dayay inuu xiro wararka la isla dhaxmarayo iyadoo ay jiraan waxyaabo yaryar oo laga heli karo wararka sheegaya in Red Devils ay diyaarinayso duulaan daafaca Gunners ayaa xilli ciyaareed amaah ku qaadan doona France qodobkaasi waxa eegaya Xuseen Cumar Xuseen difaaca kooxda Arsenal William Saliba ayaa gaaray dalka France ka hor intii uusan u dhaqaaqin kooxda Marseille Gunners ayaa wada hadal ku jiray kooxda Liga 1 todobaad heshiis amaaha ah oo ku doonayo 22 jirkan difaaca dhexe ee ka ciyaara kaasoo qayb labaad ee xilli ciyaareedkii hore la qaatay kooxda Nice waxa haatan heshiis la gaaray iyadoo difaaca la siiyay fasax uu ku safrayo France si uu dhameystiro ku biiridiisa Stadium Velodrome Marc Asensio ayaa ku adkeysanaya inuu sii joogo Real Madrid Marcus Asensio ayaa ku adkeysanaya inuu wali noqon doono ciyaaryahan Real Madrid 2021 ilaa 2022 iyadoo 25 jirkan uu doonayo inuu iska caawiyo halgankii dhawaan ee dhaawacyada kadib markii uu qaatay toogashadii Olympica 2020 ciyaaryahanka heerka caalamiga ee dalka Spain ayaa la dhibaatoonaya dhaawacyo dhowr ah xilli ciyaareedkii hore taasoo keentay inuu ugu dambeyntii ka baxo qorshaha qarankiisa ee koobka qaramada Yurub ee xagaagan su'aalo la weydiiyay ciyaaryahanka oo ah inta uu ku sii nagaan doono Santiago Bernabeu iyadoo ay jiraan warar xiiso leh oo ka imaanaya England kuwaas oo soo shaxbaxay waagii hore laakiin ninka uu ku xidhan qandaraaska ilaa 2023 ayaa ku faraxsan meesha uu haatan ku sugan yahay Lazio ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameysay Philip Anderson qodobkaasi waxa eegaya Xasan Cumar Xuseen Philip Anderson ayaa soo gaaray magaalada Roma wuxuuna isku diyaarinayaa inuu noqdo laacib cusub oo ka tirsan kooxda Lazio ciyaaryahanka oo xilli ciyaareed amaah kaga soo qaatay Porto ayaa ku soo laabtay garoonka Lazio ee Olimpico dhanka kale sida lagu daawacay bogga Twitter-ka ee Lazio waan soo dhaweynaynaa ciyaaryahanka isla markaana waa wax lagu farxo inaan ku arko garoonka Roma dhanka kale ciyaaryahanka ayaa hadda loo qorsheynayaa baaritaano caafimaad iyo saxiixa qandaraaskiisa cusub intaan ku soo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsh Sports TV yani waa Munac Isma waxaad kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo